gudoomiyaha degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho Rawda Cabdullaahi Colaad ayaa kormeer waxa ay ku tagtay MCH ku yaala degmadaas waxaana ka soconayay isxilqaan dhaqaatiirta ku nool magaalada Muqdisho qaarkood ay adeegyo caafimaad ku siinayeen dadka ku nool degmadaas ee imaanaya MCH ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha oo mid u booqatay dhammaan xarumaha kala duwan ee MCH-ka hawsha ka soconaysa ayaa ugu dambeyn la hadashay goobjoog waxaana ay sharaxaysaa waxa uu ka dhigan yahay barnaamijkan ay sida bilaashka ah ku fulinayaan dhaqaatiirtu. maanta arintan aan sameynayno waxay ka mid tahay barnaamij aan bilownay oo qaaran aqooneed ah. isbuucan oo dhan waxaa noo soo socotay barnaamijyo kala duwan dhaqaatiirta indhaha ah. bas muddo 3 bari waxay soo booqanaysay degmada oo ka imaadeen isbitaalka Yardimaali. maantana waxaan soo booqdeen oo noo yimaadeen oo kaalin lixaad ay ka geysteen shalay nala joogeen dhaqaatiirta Dr. Odan iyo Dr. Maxamed oo dardar gelinayaan barnaamijkan dawo iyo daryeel oo ay ugu talagaleen in dadka lagu caawiyo bilow fiican uu noqdo. markasta oo aan aragno dad wanaag wadana degmada Waaberi inaan soo dhaweynaan jecelnahay siba qaybtan caafimaadka oo aan aad iyo aad rabo inaan u horumariyo oo wax ka qabto. sida aad arkayseen isbitaalka baahidiisa aad bay u badan tahay MCH-kan ha ahaato xag agab ha ahaato xag daawo ha ahaato xag dhaqaatiir. marka waxaan rabnaa insha Allah tacaala isbitaalka markii ugu horeyso MCH-ka aan imaado ma ahan laakiin se intii hore dhan waxaan u raadinaynay dhaqaatiir intay noo imaadaan qaaran aqooneed sameeyaan oo dhaqaatiirta hadda joogto si kabaan oo la caawiyaan hawshooda maalmeedka ahayd inay gutaan. dad aad u tiro badan ayaa maalin walba soo booqda isbitaalka. qaar ka mid ah dhaqaatiirta sida mutadawacnimada ah ku qaabilayay dadka ku nool degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho ee baahiyaha caafimaad dareemaya ayaan xog wareysanay waxaana ay ka hadlayaan dareenkooda ku aadan isxilqaankan iyo cidda ku baraarujisay inay si lacag la'aan ah ugu shaqeeyaan bulshada. maantay aan joogno degmada Waaberi aan ka qayb qaadanayno barnaamijka qaaran aqooneed anigoo ka mid ah dadka wado initiative-ka oo la dhahayo dawo iyo daryeel. waxaan jeclaysanaa maanta inaan imaano degmada Waaberi oo aan qayb ka qaadano caafimaadka baahida caafimaadka ee degmada ka jirto. ilaa hadda iyo saakana sida mashquulka ahayn shalayna waa kaambooyin ku yaalo degmada aan ka howlgalaynay. marka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha degmada Rawda Colaad oo nagu abuurtay in aan ka qayb qaadano barnaamijkan oo dadkii in aqoonteena aan la wadaagno wadanka iyo dadkii. waxaa u nimid inaan macnaha dadka tabaaleysan oo xagga caafimaadka ka liito inaan qayb weyn ka geysano. maanta waxaan joognaa MCH-ka degmada. shalay sidoo kale waxaa aadnay kaam ku yaalo degmada Tawakal kaam la yiraahdo anagoo qayb weyn ka geysanay dadka masaakiinta oo tabaaleysan xagga caafimaadka. waxaan u nimid marka in aan aqoonteena iyo waxaan naqaano aan fi sabiilillah ugu tadawacno. waxaa aad noogu dhiirigeliyay gudoomiyaha degmada aadan u mahadcelinaynaa. markastana diyaar waxaan u nahay dadkeena inaan markasta aan u horno aan waxa awoodna u sameeyno. dhanka kale maamulka degmada Waaberi oo ay hogaaminaysay gudoomiyaha degmadaas ayaa booqasho ku tagay xarun dad barakacyaal ay ku nool yihiin oo ka agdhow aeroboorka Muqdisho. dadkaas oo qaba baahiyo kala duwan ayay Rawda Cabdullaahi Colaad gudoomiyaha degmada Waaberi waxay u ballan qaaday inay heli doonaan adeegyo caafimaad iyo kuwo nololeed intaba. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.